بسم الله الرحمن الرحيم casharka gaaban ee joogtada wuxuu ku saabsan yahay maanta warka waxaan idiin sheegi doonaa waxa laga dhaadhiciyey iyo ujeedada warka laga leeyahay waxaanan isticmaali doonaa tusaalooyin dhacay oo ama aad maqashay ama aad khadka ka aragtay haddaba aan ku bilaabo ta hore warka iminka sanadaba waxaan lahaa warka waa dhaawac waxaan arkay barigan yaraa waxaan usoo iibin jiray baytariyada dadka dhalinyarada iminka kuwa jooga ama garanaya record waxaa la odhan jiray ama historia ayaa jiri jiray yaroo kaasiyaa la odhan jiray casaan buu ahaa ama cagaar buu ama madow buu ahaa marka laba baytari mid qaadan jiray mid afar buu qaadan jiray mid laba sameecadood buu lahaa mid laba sameecadood waaweyn buu lahaa mid wuu dhexeeyey midna wuu weynaa midna wuu sii weynaa midna wuu yaraa baan ka wadaa marka baytariya waxay dhegeysan jireen 5 barka iyo 9 habeenimo BBC laanta Soomaaliga soo geli jirtay marka qarnigan aan ogaaday warku dhaawac Soomaalida ku keenay deedna waxaan bilaabay inaan wax ka qoro warka badanka aan ka hadlo muuqaal ka sameeyo si dadka kale aan uga digo dhibaatada warka uu ku keenay bulshadeena dhaawac weyn buu dadku waxay yiraahdaan qabyaalada keentay waa run qabyaalada dhibaato keentay dadku waxay yiraahdaan dawlad la'aanta waa beentaasi dawlad loo baahna dad bilaa dawlad oo jira oo najaxay adduunku najaxay oo akhlaaq leh oo is xukuma oo akhlaaqda isku xukuma iyo jahaliyada warka qayb buu ka yahay dhibaatooyinka Soomaalida marka warka waxa laga dhaadhiciyay inuu aad adduunka la soconayso ka horaan ka soo hadlay maanta shalan ka hadlay saakan oo ka hadlay kuma sii turkiya kaas ka kale warka ujeedada loogu leeyahay baan xoog saaraya ko ujeedada loogu leeyahay reer galbeedku wadamada gumeystayaashu ay ka leeyihiin waxa weeye waa xukun hubka ugu fiican ay haystaana waa warka ama waxa idaacada loo yaqaano aflaanta dokumentariyada iyo warka joogtada ama qoraal ha noqdo ama muuqaal ha noqdee aflaanta kan fiidiyoda idaacadahoodu waxa ay hirgeliyaan fikirkooda gumeystaha in reer galbeedku uu ka horeeyo dadka kale ilaa iyo kuwa bartay mooyaane dowladaha iska bartay mooyaane dadkooda u diga mooyaane sida Shiinaha oo kale iyo sida Ruushka oo kale iyo sida Iiraan oo kale iyo hadana Carabaha oo kale iyo dadka sunnaha ay dhulka dhigteen waayo dawlad ka difaacda ma jirto imanka Mareykanka oo kale waxaa jira shaashad ama idaacad caana oo la yiraahdo Russia maanta oo xitaa af Carabi ku baxda way iska xireen Mareykanku way iska xireen Ingiriis Yurubna way iska xidhay sababtoo ah in dooni maayaan fikirka laga bedelo dadkooda in laga bedelo oo fikirka Ruushka ay maqlaan lama doonayo khadka kale waa sidaa Shiinaha TikTok oo kale waxa la imika u iibiyeen waxay ku leeyahay ka xiran hadaad iibin marka way difaacaan dadkooda waxay doonayaan fikirkooda kaliya laga dhaadhiciyo fikir kale oo xorriyada oo wadamada kale ay leeyihiin ma ogolaan laga dhaadhiciyo imika Hindiya kale waxaan maqlay nin buugaagta daawici jiray oo muslima wuxuu ii sheegay TikTok inuu Hindiya mamnuuc ka yahay waayo dawladdu waxay difaacaysaa akhlaaqda ama asluubta dumarka qaqaawan iyo ragga naagaha qaqaawan daawanaya iyo akhlaaq xumada ayaa marka ma gali kartid taasi waa taa marka warka waa la difaacay inaga warka cid naga difaaca ma jirto caqligeennana ma laha cid inoo sheegtana ma maqalno marka waxaan isleeyahay dadka aad u sheegtid aad uga digtid tan warka waxay iyagu ka leeyihiin maskaxda ka gumeystaan waayo ciidamo ma hayaan militarina ma hayaan hubna ma hayaan waxay ka dhaadhiciyeen warka mooyaane ma haystaan marka waxa uga fudud iyaga in adiga gurigaaga fadhiya aad aaminto waxay ka dhaadhiciyaan tusaalaan ku siinaya 2 cisho ka hor 3 bisha Mareykanku wuxuu ku sheegay reer galbeedkuna ay sii tuureen in uu wadan galay Venezuela la yiraahdo oo laabka Ingiriiska 4 goor ku soo laabmo wadan weyn buuru leeyahay
kaymaha jiqa ciidamo wuxuu leeyahay casriya hub casriya haystaan dhaqaaluu leeyay oil buu saliid buu leeyay batrool in ay tageen 40 qof ay dileen oo meel kala jooga madaxweynihiina ay soo qabteen wadanka Venezuela madaxweynaha Nicolas Maduro oo ah nin u doodi jiray Falastiinta ilaa iyo daraad waad aamintay wallahi yani waxaan tagay masaajidka xaafadayda ku yaala maqaaxi yar baa ka hoos taala waxaan arkay niman waaweyn dhowr ku jiraa oo le wallahi waa khatar wallahi Mareykanka saa loo adkaysan kari maayo marka saan ugu sheega ma garanayo oo iska aamus hadii kale walaalo murmay waayo waxa lama mur kartid qof waxa aaminsan marka dadka waxaan is weydiiyay sanada ka hor sidee way waxaan beenta ay og yihiin ama ay qof kale u sharxayo say ku maqlaan sidee way ku aqbalaan deedna waxay noqotay aflaanta Hollywood waqtigaygii 9-meeyadii aflaanta TV-ga qarnigan imaka ama 10kii sano ee ugu dambeeyay waxa weeye social media marka qof waxa aflaanta Mareykanka Rambo iyo meel tago iyo nin kaliya ama naag kaliya oo xitaa niman askar oo tababaran saa u leynayso oo indha yar ama madow qabanaysa muxuu ay kabta film daawato Black Hawk dhan hada filmka daawato wuxuu dhan waad baqanaysa ma baqanayso sidoo kaliya wad dhiibaysa xaqiiqadana sidaas maaha waayo wax aad aamintay waa wax laga dhaciyay marka madaxweynaha Mareykanka markuu daraal saa u sheegay aflaantii Hollywood wixiisii way wada aamineen marka dad qof hoos u yeeshay dad ku tira warade war waxaan run ma bal dhinaca kalena ka eeg sidee ku dhici kartaa qofku ku dhageysanaad ku tira warade madaxweynaha Nicolas Maduro wuxuu aan daacada wadankiisa daacada waa dadkiisa u daacada imaka dadkiisa wada ka wada daacada wasiiradiisii iyo ciidamadiisii ku haystay ayaa dabay wadan intaas ciidan haysta oo intaas afur casas xabad may dhicin miisridi way dabeen isna wuu og yahay qofkii aqliga wuu og yahay waa sidii Masar ka dhacday 14 sano ka hor kale Maxamed Mursi Allah naxariistay madaxweynihii ugu horeeyay taariikhda Masar la doorto kii ciidamada u haystay baa ayaa loo isay waxa lagu iska dhig dharkan militariga suud xido annaga ku saareen ilaa maanta waa ka saaran dadka kuwiis yara dhiiga lahaayee yara kacayna laabta laga toogtay wallahi waxaan garay mid qaahira xabad wad arkaysa kamarada sida ay u gasho laabta ka gasho halka beerka xagga sare ka gasho dhabar ka baxaysa caadi soo baxaysa dadkii mudaharaadayna waxa laga kaxeeyay Yurub laga kaxeeyay walaamusi ka soo jeeday idaacada BBC laga tusiyay laga tusiyay takale Syria sanad iyo bil ka hor waxa lagu yidadba waxa lagu tusay niman gaajoona iyo qolfoofa oo lagu yidhi xabsi u galiyay Al-Assad al-Bashar wad la cartay wad aamintaa tani marka laba cisho ka hor madaxweyne Nicolas Maduro wad aamintay ismaal oran warade waxbaa jira ciidamadii ma xabad may toorin dawladdiina madaxweynihii kaliya ka maqan wasiiradii iyo ra'iisul wasaarihii marka madaxweynaha ayaa jooga maxkamadiina waa sidii waxbaa jira ma oran dadkii wax yaqaaneen waxba maad weydiinin waayo waxa kugu maqan intaasoo film baa kugu maqan oo Hollywood intaasoo fiiriyo oo TikTok iyo YouTube oo Mareykanka fikirkooda ka dhadhicinaya marka Mareykanku maskaxdaadu qabsan Venezuela muu qabsan maskaxdaadu hore u haystay bay kala yaaba Soomaaliland aqoonsigeeda maxaa loo calanka Yuhuudda loo helay naagta ninka Yuhuudiga madaxa u salaaxay taabanaya ku dhigdhigaya xijaabka xiran war adiga xitaa madaxaaga la qabsaday mar hore sidee baa lagu qabsaday idaacadaha lagu qabsaday Venezuela lama haysto Somaliland dhibaato maaha Soomaaliya maaha dhibaato sunnaha maaha waa adiga maskaxdaada ayay Mareykanku markii hore qabsadeen say ku qabsadeen aflaan iyo social media ku qabsadeen
imakana waa Netflix-ka waqtigaygii Hollywood-ku ahaa iyo TV-ga ayaan hor fadhiisan jiray maalin kasta mar baa noo soo geli maalinta dhan waxaa soo geli jiray filina ama 2 film soo geli jiray imaka Netflix-ka adigoo gurigaaga fadhiyaad intaasoo 100 fiidyo daawanaysa 100 film baa daawanaysa marka Netflix-koodii marka waxooda kaa dhadhiciyaan markuu been kuu sheego dee waad iska aaminaysa markuu yidhaa waddan baan tegay weyn oo intaasoo balaca oo intaasoo kaymood ku taala intaasoo ciidan leh oo madaxweyniyo kala soo qabtay 40 qofna waan dilay waana soo noqday oo diyaaradaha yaryar ee ay keega gaadhaya inamada hawiye waa diyaaradihii ay soo rideen ayaan ku soo qaaday oo aflaanta ka dhadhiciyo sacabkaadu garaacaysaa wada aaminsan waayo maskaxda laga haystaa maskaxdaada imika lama qabsan Netflix baa maskaxda qabsay waqtigaygiina wuxuu ahaa TV-ga marka maskaxda la haystaa